waxaan u baahannahay marka maanta waxyaabaha mucjisada ahayd waxaa ka mid ah iyagoon bil joogin baa nabadii la dareemay waa 100 wiil bay ahaayeen 120 wiil iyadoo ay mudug ku sugnaayeen 2,000 oo ciidan waxyaabaha aan aad ula yaabay bay ka mid ahayd tijaabaan isaga soo dirnay laakiin inay sidaa wax isu bedelayaan runtii annaga ruuxadeena ma garabsanayn waxaan rajaynayaa nabaddaas iyo wanaaggaas haysataan inaad adkaysaan waxaan idin rajaynayaa xiriirka iyo wada shaqaynta aad galmudug la leedihiin inaad adkaysaan cadowga isku midka ah ee al-shabaab ah meel uga soo wada jeesataan horumarka gobolka ka socda iyo kan gobollada kale ee puntland ka socda aad idinka u diyaar garowdaan inaad qaybtiina qaadataan wada shaqaynta bulshada qaybaheeda kala duwan oo u horeeyaan dhaqanka odayada isimada nabadoonnada qaybaha kala duwan ee ururada bulshada dhallinyarada iyo haweenka waa lafdhabarta dadka la rabo in loo shaqeeyo taladoodana wax lagu dhiso waxaan ka rajaynayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan gobolka mudug inay si dhow ula shaqeeyaan waxaan uga mahad celinayaa guddigii dib u habaynta ciidanka oo wasiir xasan shire uu madaxda u ahaa oo ku guulaystay inay puntland maanta leedahay ciidan la isku hadlayn karo ciidankaasoo kalsoonidoodii ay soo noqotay tababar helay mushahar joogto ah helay sharaf iyo karaamo helay waxaan ku farxaa marka aan arko saraakiil si fiican u labisan kulankii ugu horreysay oo saraakiisha aan la yeeshay waxaa ii yimid rag hadda aanan tilmaami karin oo sifayn karin laba saar oo kala duwan wata kala saandala wata koofiyad aan lahayn garaadana warkooda iska daa ku dhahay korneyl baana maantana waxaan u malaynayaa haybadda inaga muuqatay ninkaa markhaantika ah marka runtii ciidanku kama soo haro tababarka iyo kala dambaynta iyo disiblinka ciidan aanan isxukumin oo disciblin oo garaadahan la bixinayo qiimo ma yeelana haddaa qofka lagu qiimeyn marka waxaan u baahannahay inaan dowladnimadii dib u yagaleelno dowladnimaduna ogaada soomaaliya marxalad adag bay soo martay haddana marxalad adag oo siyaasadeed bay ku jirtaa horeyna inta hadda la hayo puntland baa gundhig u ahayd inta hadda la filayo maqanna reer puntland oo idinkaan iliga jeedaa haddaydan idinku tiinna daryeelin tukal kuma dari kartaan marka waxaan u baahannahay inaan dowladnimada puntlandna aan xoojinno baadigoobka soomaalida siduu halkudhigga iyo aasaaskii puntland uu ahaana aan ka doonno isku duubnideena iyo midnimadeena aan ilaalinno cidda markaas naga ra'yi diban siday caasho sheegtay la baadigoobo la wada hadlo puntland waxay bisha soo socota geli doontaa 3 degmo ugu horreeyay oo tijaabada ah ururada siyaasadda soomaalidu saad og tihiin wada siyaasiyiin baa la noqday waxaan rabaa inaan ciidamada u sheego ciidamadu siyaasadda isaga baxa ha ku milmina waqti ha ku dhuminina maxaa yeelay shaqadiina inaga dayacaysaa dadweynaha iyo bulshada qaybahooda kala duwanna waxaan ka rajaynayaa inay shaqadooda qabsadaan ururada siyaasadduna waxaa la rabaa inay bulshada ku hogaamiyaan siyaasad caafimaad qabta oo furan runtii markaan taa u gudubno wax badan oo kuturkuteena waa ay dhammaan doonaan ninkii wax isku hayo oo rabo bulshada inuu wax usoo bandhigo waxaa la rabaa inuu fagaarayaasha yimaado oo uu sharxo waxa uu rabo dadka inuu qabto tartan caafimaad qabaa la geli oo aan reero ku dhisnayn magaaladan markaan imaanayay 2 shay oo yaab leh baa mudug kala kulmay horta reer kasta reer lama dhigi kara jifi kasta waxay rabtay xero gaara oo ay ciidan ku xaraysato ururada markaa weydiiyey reer walba ururada magacyada qabiil bay lahaayeen
waxaa kaloo yaad ugu noqotay maraan tuur ku maraayo reer kasta intay yimaado wuxuu yidhahaan iskuul gaara inaan dhiganaan rabna aan helno marka bulsho iyadii dhanba la kala googoynayo oo dowladnimo aan loo wadin ayaa horta halkaa ka soo baxday marka arrintaas waa arrin u baahan hadda waaba isbeddesho waa laga hortegay waxaan u baahannahay bulsho mid ah oo hal ciidan leh oo hal nidaam iskuul leh oo hal caafimaad leh oo hal maamul leh oo maamulka gobolka marka laga hadlaayo maamulkii waa daadejinay awoodihii aan dowladda dhexe lahayd waa siinay waxaa hadda runtii dib u dhac nooga dhacay in guriga dhismihiisu hadda dhowaan dhammaan doono aan ugu talagalnay xarunta dowladda puntland ee gobolka mudug ay ku kulmaan dhammaan wasaaradaha dowladda puntland ee adeega bixiya inay halka isugu yimaadaan oo guddoomiyaha gobolku uu noqdo guddoomiyaha guddiga amniga iyo guddoomiyaha guddiga horumarinta labadii dhinacba uu isaga functionality-ga dowladda sidii dowladnimadeena u dhisnayd oo dastuurkeena iyo nidaamkan ku dhisnaa inay u shaqayso runtii shaqada la qabtay inaan xafladdan qabanno waa mutaysateen idinkaana keensaday maxaa yeelay anigu maalinta halkaa aan joogana waa lahaayo reer mudug haddii ay is-aaminaan oo u soo jeestaan karti ay dadkooda iyo dalkooda ku dhisaan waa leeyihin waxa ugu weynaa oon la dagaalanay markaan nimid waxay ahayd kala shaki baa jiray iyo qofba qofka garabkiisa jooga uu ka shakinayo uu ka baqaayo waxaasna ninkii abwaankaa waa halka sheegay waa saddexda calaamadood ay shaydaanku uga mid yihiin nimankaasaa waxay abuureen cabsi iyo fiir aan weelu ka yimid aan la garanin oo dadkii ka qaaday runtii kalsoonidii sidaa hadda guddoomiyuhu sheegay kulan safarkii ugu horreeyey aan imid magaalada bannaankeeda xaflad lagu qabtay garacad alaabteeda lagu waday waxa aanay isku kay qaban weynay markaan yaraa waxaan maqli jiray reer mudug waa reer libaxtisa ka taabtay iyo waa baqeen ani waa isu kay geli weyd runtii marka ma aysan baqina shaydaan baa u waxyooday balaayaa dhex gashay laakiin markay dhiiradeen runtii adduunkii oo dhan bay ka yaabayeen sida ay kartida leh oo ay shabakadihii u soo qabteen haddaana khaldanayn korneel cumarna wuu ii sheegi doonaaye khabiir dambi baarisa shabakooyinkaas mid la mida oo soomaaliya laga qabta ma jirtaan filaya kartibay ku timid iyo dadaal iyo in dadkii reer mudugaha kuwii gudaha joogay iyo sida la sheegay qurba joogtiiba ay mid ka noqdeen inuu mashruucaas la jiro runtii mashruucaas wuxuu soomaaliya u noqday rajuu soo celiyey waxaa muuqanaysa dadka soomaaliyeed inay ku filan yihiin taladooda waxaa muuqanaysa dadka soomaaliyeed inaysan ahayn hadda dowladaha meelaha kale waxa lagu yidhahda soomaalidu waa wada argagixiso ilaa haddaadoo argagixisada aadan iska qaban adna argagixisaa noqonaysa raallinaa ka taha moodaysaa marka inay soomaalidu argagixiso ahayn argagixisada ay necab tahay la dagaalamayso